wax ka ogow taariikhda ku saabsan madaxweynayaashii Mareykanka ee la dilay iyo kuwii la dhaawacay. Hal Abraham Lincoln waxaa la dilay Abriil 1865, waxaana dilay John Wilkes Booth oo ku sugnaa tiyaatarka Ford ee Washington, D.C. 2 James A. Garfield waxaa la dilay July 1881, waxaana dilay Charles J. Guiteau ee saldhigga tareenada ee Baltimore iyo Potomac ee Washington. Garfield wuxuu u dhintay dhaawaciisii Sebtembar 1881. William McKinley waxaa la dilay Sebtembar 1901, waxaana dilay Leon Czolgosz bandhigga Pan American ee Buffalo, New York. McKinley wuxuu u dhintay dhaawaciisii Sebtembar 1914. John F. Kennedy waxaa la dilay November 22, 1963, waxaana dilay Lee Harvey Oswald oo ku sugan Dallas, Texas, isaga oo saarnaa gaadhi mooto ah. Intaa waxaa dheer, 2 madaxweyne oo Mareykan ah ayaa lagu dhaawacay isku day dil. Ronald Reagan waxaa la dhaawacay March 3, 1981. John Hinckley jir oo ku sugan Washington, Reagan waa la toogtay oo dhaawacmay, laakiin wuu ka badbaaday isku dayga. Donald Trump waxaa isku day dil ka badbaaday shalay oo ay taariikhdu ahay July 24. Madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump oo dhaawac fudud ka soo gaadhay dhagta bidix dusheeda. Dhacdooyinkani waxay saameyn joogto ah ku yeesheen taariikhda Mareykanka iyo tallaabooyinka amniga ee ku xeeran madaxtooyada.